Somali Fan TV subscribe. waa mahadsantahay Faysal xalay markii inta soo raacay waxa deegaanka Sacbuun ka dhacay waxa ka dhacay dad shacab ah oo halkaasi lagu laayay deegaankaasi dadkaasi shacabka waxa dad deegaanka ka soo jeeday laakiin dadkaasi ay isku jireen ilmo iyo waliba hooyadood oo halkaasi lagu tafsaaray oo halkaasina ay ku geeriyoodeen yaa marka dilkooda ka dambeeyay waa imisa dadka se la dilay dadka la dilay adigu waa shan afar ilmood iyo waliba hooyadii ku jira iyo wax sidoo kale waxaa la sheegayaa in ay laayeen waa maamulka Puntland waa ciidan ka soo jeeda maamulka Puntland halkaasi ku jireen dadkaasi shacabka ah dhanka kale gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdishiid Xaashi Cartan ayaa saxaafadda la hadlay wuxuuna sheegay in arrintaasi ay ka xun yihiin dadkaasi shacabka ay lagu laayay deegaanka Sacbuun waa gartay maxay tahay sababta dadka loo laayay maadaama dad shacab ay yihiin sababta loo laayay ilaa haatan Faysalow dadka reer gaalkacay laftigooda way isla dhexmarayaan sababta loo laayay walow maalinnimadii daraadayda ahayd in ay ku wada gaareen heshiis magaalada gaalkacyo waa labada madaxweyne ku-xigeen ee galmudug iyo weliba Puntland Cabdikari Aaniraade Cabdixakiin Xaashi Cami iyo weliba dhigiisa Maxamed Xaashi Carabi laakiin sababta loo laayay ayaa dadka waxay isla dhexmarayaan in ay tahay aanooyin qabiil oo baryahanba ka dhex taagneed labada maamul Somali Fan TV subscribe. waa mahadsantahay Faysal xalay markii inta soo raacay waxa deegaanka